mashruuca waxbarashada lacag la'aanta lagu kobcinayo waxbarashada Soomaaliya ayaa midowga Yurub waxa ugu deeqay Soomaaliya waxaana mashruuca laga hirgelinayaa deegaanada gobolka Banaadir, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle. barnaamijka ayaa socon doona muddo 4 sano waxaana ku baxaysa lacag dhan 9 milyan oo euro waxaana goobjoog ka ahaa wakiilo ka socday dowlad goboleedyada dalka, wasaaradaha waxbarashada iyo qorsheynta xukuumadda Soomaaliya. wajiga hore ee barnaamijka waxbarashada lacag la'aanta oo midowga Yurub uu bixinaya ayaa lagu daafuray dugsiga hoose dhexe ee 11 Janaayo ee ku yaala degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho, iyadoona ay ka qayb galeen safiir ku-xigeenka midowga Yurub, mas'uuliyiinta barnaamijkaasi fulinaysa oo ka socday Adro Germany iyo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. ku-xigeenka midowga Yurub ee Soomaaliya oo daafuray barnaamijka waxbarashada lacag la'aanta oo midowga Yurub ugu deeqay Soomaaliya ayaa ka dhawaajiyay in deegaanada dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir laga hirgelinayo mashruucaasi waxbarashada. Just a final word to the girls, to these students that are here today. ugu dambayn fariintan aan u dirayo ardayda Soomaaliyeed waxay tahay inay sii wadaan waxbarashadooda iyo himilooyinkooda si ay horumar wanaagsan uga gaaraan waxbarashada. haddii aan nahay midowga Yurub waxaan garab taagannahay dawladda Soomaaliya iyo ardayda waxbarashada dhigata. waan ku dhiirigelinaynaa waxbarashada ardayda ay wadaan. wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle ayaa tilmaamay muhiimadda carruurta Soomaaliyeed ay u leedahay waxbarasho tayo leh oo lacag la'aan ah waxaana uu ka dhawaajiyay in midowga Yurub oo marar badan gacan ka geystay horumarinta waxbarashada Soomaaliya. waxbarashada carruurta Soomaaliyeed sidaad la socotaan ka xukuumad ahaan waxa annaga mar walba waajib nagu ah inaan fursad siino u raadino carruurta Soomaaliyeed ilaa waxbarasho ay ka helayaan asaasiga ah. waa qodob dastuuri ah, waa qodob heshiiskeena oo ka mid ah dastuurka qaranka. sidaa darteed waxaa naga go'an inaan saaxiibada Soomaaliya iyo annaga ka wada shaqeyno in la helo carruurta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay waxbarasho helaan. Cabdicasiis Ibraahim Axmed, TV Universal, magaalada Muqdisho.